marnaba lacag kuma bixiyo cunto fudud wax kasta oo dukaanka ii muuqda oo fiican waxaan ku ridaa gaadhiga qof igu dhibi kara ma jiro waxaan qaadan karaa dukaanka oo dhan qofna ma ku dhiiran karo inuu yiraahdo maya sababtoo ah hal sano oo dhan waxaan ku waday bas adduunka oo dhan ma aanan helin hal qof oo nool aniga mooyaane markaas waxaan fariimo ka qoray boorar waaweyn oo jidka yaal anigoo leh waxaa jira qof nool oo jooga kadibna waxaan u boqolay xaafadda dadka taajiriinta ah ee magaalada Tucson waxaan ka helay guri raaxo leh oo qaaliga ah halkaas ayaan degay waxa ugu horeeya ee aan sameeyo waxay ahayd inaan ka dhigo guri aniga ii gaar ah dib u habeyn buuxda ayaan sameeyay dhammaan rinjiyii caanka ahaa ee madxafka yaalay ayaan ka soo qaaday waxaan dhigay darbiyada waxaan keenay lafihii dinosoorada si ay u noqdaan alaabta qurxinta aniga ayaa ah qofka kaliya ee dunida ka nool markaa dunida oo dhan waa hanti ii gaar ah wax kasta oo aan rabo waan qaataa muddo yar kadib gurigii ayaan u dhigay sidii aan rabay sawirada qoyskayga ayaan ugu dambayn waa iga dhammaadeen wax kasta oo dib u habeyn ah markii hore ee aan degay weli waan ku raaxaysan jiray inaan waasho wax kasta waxaan cuni jiray wax kasta oo aan rabo waxaan ahay macmiilka kaliya ee dukaamada dunida oo dhan $10 ayaan ku shubay barkada qubayska oo sidaas ayaan isugu hubay markii aan biyo ku waayay mususha waxaan dalool ka qoday looxada baashaha waxaanan barkadii ka dhigay musul banaanka ah oo weyn mar walba bowling ayaan jeclaa waxaan isul saaray haamiyayaal kalluun ku jira kadibna waxaan ku jiray baabuurkayga sida kubad bowling ah markii aan ka dhammaaday waxyaabihii aan ku dhufanayay waxaan baabuur kale saaray meel ka sarraysa mid kale ayaana ku dhacay sidii kubad kale oo lagu dhufanayo markii hore waxaan moodayay in noloshu aad u fiican tahay waxaan ka maadsan jiray ninkii filimka casaway oo kubad la hadla laakiin marnaba ma aanan filayn inaanan u baahi qabin wax cunto ama cabitaan ah in wax ka yar 6 bilood gudahood aan ka xumaado ninkaas casaway ma aha oo keliya inaan bilaabay inaan la hadlo kubad waxaan saaxiib ka dhigay dhammaan noocyada kubadaha laakiin